بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته كسو دواada barnaamijkan caawa barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay 10 fikir oo inta badan maskaxdeena ku soo dhaca oo ay tahay inaan iska ilaalino 10 kan fikir runtii waa 10 fikir oo haddii aad ku dhaqanto noloshaada runtii saameyn weyn ku yeelanaya waliba saamaynta ku samaynayana waa saameyn aan wanaagsanayn waxaanay ka hor istaagayaan 10 kan fikirba haddii aad raacdo inaad runtii wanaag iyo horumar iyo guulba aad gaadhaba ka hor istaagayaan haddaba fikirka koowaad muxuu yahay fikirka koowaad ee maskaxdeena ku soo dhaca ee ay tahay in iska ilaaliso ka koowaad waxa weeyaan waa fikirka oranaya dadku waa inay wada jeclaadaan dadku waa inay wada amaanaan dadku waa inay aniga dhiirigeliyaan fikirka nooca oranaya dad badan baa fikirka noocaas aaminsan oo aaminsan dadka oo dhan inay raali ka wada noqdaan dadka oo dhan ay wada jeclaadaan dadka oo dhan iyaguna ay xiiseeyaan arrintaasi sax maaha noloshan adduunka inta la joogo arrintaas arrin dhici karta maaha ina bini aadanka ama dadka la nooshahay dhammaantood ay ku taageeraan oo ku jeclaadaan aad bay u adagtahay ilaahay subxaana wa tacaala cid ka weyni ma jirto haddana ilaa hadda bani aadan baa jira ilaahayba aan qarsanayn maxaa taa ka weyn ilaahay abuuray dadka aan ogolayn bale maxaa marka arrintaa laga imaado waxaa jira rasuulullaahi moxamed dad badan baa waqtigiisii kasoo horjeestay oo caaya oo dhaleeceeyey bal adiguna isweydii bal dadka rasuulullaahi moxamed kasoo horjeestay isagoo rasuulkii xaqa ahaa dad baa jira ilaahay aan ogolayn bani aadanka noocaasa ma adiga iyo aniga oo inta badan qaladaad iska leh ayaad ka filanaysaa inay markasta ku ammaanaan oy markasta ku taageeraan aad buu adagtay daawada markaa maxaa laga raba xalku muxuu yahay xalku wuxuu yahay wixii aad wanaag aada u arkayso samee dadka wanaagsan way ku ogolaanayaan in badanna oo xunina way ku diidaysaa noloshana sidaasa waa inaad markaa taa maskaxdaada gelisaa oy maskaxdaadu qaadataa oo cid hadday wax kaa sheegto ay ku salugto markiibaa xanaaqin haboodin noloshaa sidaasa daaba fikirka labaad waxa weeyaan ee dadka qaar ay aaminsan yihiin ee nolosheena dhib u keenaya waxa weeyaan fikirka oranaya haddii aanan waxqabad weyn la iman qof jira ma ihi dadka qaar baa aaminsan haddii waxqabad weyn aanay samaynin oo horumar weyn oo la taaban kara aanay soo kordhin inaanay waxba qaban arrintaasi sax maaha sax maahoo waxa weeyaan noloshaada oo dhan bay arrintaasi haddii aada yeelato ay cadibaysaa sababtu waxay tahay innaga waxaa laynaga rabaa qofka inuu dadaalo horumar sameeyo ahdaaf iyo goolis iyo uu dhigto ujeedeen uu yeesho uu u halgamo ahdaaftiisa laakiinse inaad gaadho oo aad xaqiijiso taasi waxa weeyaan wax badan baa sabab u noqon kara marka waxaa lagu leeyahay waa inaad ku raaxaysataa ahdaafta marka aad raadinayso waa inaad ku raaxaysataa noloshaada inta aad halganka ugu jirto inaad xaqiijiso waxaad rabto waxaa lagu leeyahay raaxada iyo sacaadada dib ha u dhigan ha oran maalintan wax qabto maalintan hadafkaa gaadho maalintan waxa aan gaadho ayaan markaa raaxaysanayaan farxaya ha oranin haddii kale noloshaada o dhan farxi maysid noloshaada o dhan waxaad noqonaysaa qof daba socda raadinaya wuxuu raadinaya oo runtii hadafkiisuu raadinaya ma aanan farxayn baad noqonaysaa sidaa daraaddeed waxay ku leedahay arrinta waxay ku oranaysaa maalin kastoo maalimahaaga ka mida ku farax oo sacaado dareen markasta ood eryanayso aada daba socoto ood xaqiijinayso ahdaaftaadii aada daba socoto ood ka shaqaynayso waa inaad ku faraxdaa ha sugin maalinta aada hadafka gaadhiso oo keliya sidaa daraaddeed waxaan ku leeyahay daawade ku raaxayso nolosha adiga oo runtii raadinaya wixii ay naftaadu rabtay inay horumar gaadhsiiso ha oran horumar weyn maan gaadhin sidaa daraaddeed qof jira ma ihi taa ha oran waxaa muhiima inaad adigu horumar ka raadiso intaad raadiso aada ku raaxaysato daba fikirka saddexaad ee aada inoogu soo dhaca waxa weeyaan ee mushkilad badanna inoo keenaya waa fikirka oranaya maxaa loo qaldamaya waxaa jira dad uun qaladaadka dadka kale dabagala cawraadkooda dabagala raba uun dadka kale markay fashilmaan inay ogaadaan ka shaqeeyo uun dadka kale
fashalkooda iyo xaaladahooda oo markaa oranaya maxaa qaladkaa loo sameeyey, muxuu qofkaas ugu qaldamay, kaasi dembigaa muxuu galay, kaasi sidaas muxuu u sameeyey. fikirka noocaasa iska ilaali. ha noqon qof dadka uu ku foogan oo dadka un eegayo waxa ay sameynaya qaladaadkay sameynayaan. ha noqonin. waxaad noqotaa qof naftiisa eega qaladaadkeeda. adigu qaladaadkaaga eeg. qof kasta qalad wuu leeyahy. waxaad adigu qalad u arkayso anigu uma arkaayo, hebel kalena uma arkaayo. marka qaladkaaga iyo wax fikirkaad aad u aaminsan tahay ha igu qasmin mar kasta. haddii qalad jiro oo ay sax tahay, xaq waxaad u leedahay qofka inaad u sheegto, u naseexayso, xaq baad u leedahay. laakiinse waxaa taa ka horeysa adiguna qaladaad baad leedahay, kuwaaga sax. intaad dadka kalun aad dabagelayso kuwaaga waa inaad saxdaa. marka arinta waxay ku leedahay, qodobkan waxa uu ku leeyahay, ha noqon qof dadka kalun qaladaadkooda ka fakira oo dadka kalun cawraadkooda dabagala. haddaad arinta sifada noocaasa haddaad yeelato, nolosha ku macaanaan mayso. sababtoo maalin kasta cid baa qalad galaysa, maalin kasta cid baa sida ay rabtay aan samayneyn. warwar baad ku noolaanaysaa. arintaa ka bax, naftaada ku mashquul, qaladaadkeeda ku mashquul. daawade fikirka afaraadee dadka kusoo dhacay aan saxdahayn waxa weeyaan, waa fikirka oranaya qofku inuu markasta qofku wuxuu sugayaa inay balaaya dhacdo. wax kasta oo muxuu haaye ku dhacaya oo ku soo socda wuxuu is oranaya dhibaatii ku keenaya. mar kasta wuxuu ka fakirayaa waxunumuu ka fakiraya. mar kasta wuxuu sugayaa dhibaato iyo waxun buu sugayaa. mar kasta wuxuu filanayaa dhib umu filanaya. haddaad aragto qof noocaa ku nool oo markuu wax yar maqlaba markiiba ay kusoo dhacayso, waxaasaa dhacaya, xumaantaasaa dhacaysa, dhibtaasaa dhacaysa, halistaasaa jiraysa, oo noloshiisuba ay noqoto inuu sugo dhibaatooyin, arintaasina sax maaha. waa inaad noloshaada aada sugtaa, aada ku salaysaa wanaag. waa inay kugu soo dhacdaa markasta wanaag. wax fiican baa dhacaya, farxad baa la gaarhaya, waa la rayraynaya, dhibta waa laga baxaya, waa la raaxaysanaya, waa inay kuwaasi kugu bataan. hadday dhib timaadana waa inaad noqotaan inuu adkaysta, u runtii dhabar adayga, qadarka ilaahay aamina, xalna makaa raadiya, siduu kaga bixi lahaana raadiya. laakiinse ha noqon qof mar kasta filanaya uun xumaan iyo dhibaato iyo walaac iyo walbahar filanaya. ha noqonin. haddaad sidaa noqoto daawade, noloshaadu ma macaanaanayso. sababtoo wax kasta ood aragto dhinaca xunumaad ka eegaysaa. waxaad oranaysaa qofkaasi waxaa xumaantaas u jeeday, kaasi sidaasu ila jeeday, heblaaya waxaase u jeeday, dhibtaasaa igu imanaysa, xanuun baa igu dhici doona. dhibtaa arintaa baabka ha isku furin. dhinaca tafaa'ulka iyo wanaaga waa inaad badisaa, iyo wanaag inuu kuu iman doono, mustaqbalku kuu wanaagsanaan doono, waa inaad taa aad badisaa. daawade, qodobka shanaad waxa weeye, ama fikirka shanaaday tahay inaan iska ilaalinaa waxa weye fikirka oranaya wax kasta oo dhacaya waa inay u dhacaan sida anigu aan rabo. oo wax kasta oo dhacaya waxaad rabtaa sida adigu aad rabta inay u dhacdo. oo hadday sidaa u dhici weydo, markaba walbahaar iyo warwar baad gelaysaa iyo qaylo. arrintaasina sax maaha. qofku hadduu yidhaahdo wax kastoo la qabanayo iyo wax kasta oo socdaa sida anigu aan rabon ha u dhacaan, oo haddii wax la qabanayo waxqabadku sidayda waa anu aan raban ka fikiraya ha u dhaco. siyaasadda dalka qaabka loo hogaaminayaa sida anu aan rabon ha noqoto, sida wax kasta loo qabanaya ha noqoto sida anigu aan rabo. taasi nolosha haddii aad sida ay kugu noqoto, dee dhibaataad ku noolaanaysaa. sababtoo noloshaba sidaa looma samaynin. maalina sida aad rabtay noqonaysaa, maalina sida anigu aan rabay noqonaysaa, maalina sida cid kale ay rabtay noqonaysaa. markaa nolosha iska noocaasa, maalin bayna si ay ahaato. laakiinse hadafkaagu hadduu noqdo sida aan rabay, hadday noqon weydo waxa ma ogolaanayo, ama wax saxa maaha, ama wax fiican maaha. hadday sheekadu sidaa noqoto, fikirkaasi waa fikir qaldan, ay tahayna inaad ka fogaato iska ilaaliso. daawada fikirka lixaad ee khatarta ahee haddii aynu ku noolaano nolosheenu aanay macaanaaneyn waxa weeyaan, fikirka oranaya wax kastoo igu dhacaya cid kalaa ka dambaysa. adigiibaa fashilmay, fashilkii kusoo gaadhayba maxaad leedahay? cid kalaa igu wacan. imtixaankiibaad ku dhacday, dhicitaankii maxaad tiri? imtixaankaan ku dhacay, anigu maan dhicin, macalinkaa i riday. khasaaro weynna ganacsi baa kusoo gaadhay, adigaa sababta lahaa. laakiinse maxaad aaminsan tahay hebel kale inuu kuugu wacaya khasaaraha oo adigu aanaad keensan. hadday noloshaadu noqoto wax kastoo igu dhacaya cid kalea ka dambaysa,
arrintaasna waxay tilmaamaysaa inaad mas-uuliyadda naftaada inaad qaado inaad ka baxsanayso. haddii ay taasi kugu dhacdana qof noloshiisa ku fashilmayd noqonaysaa. waa la huba oo xaqiiqo weeyaan. dadka fashilmay oo dhan way ka sameeyeen sifada oranaysa anigu nafteeda mas-uul kama ihi, wax kastoo igu dhacayna cid kale ayaa igu samaynaysa. qofkaasi muxuu sameeyey? hogaankii naftiisa cid kale ku wareeji, isaga isma xukumaayo. marka waa afkaarta ugu khatarsan qofka bani aadamka dhulka dhigta haddii ku dhaqmo. daawada fikirka toddobaadee khatarta isnaguna waxa weeyaan fikirka oranaya waa inaan ka baxsadaa fashilka aan ku jiro ama mashaakilka igu dhacay, waa inaan ka baxsadaa oon indhaha ka laabtaa. daawada haddii mashaakilka ku haysta aad indhaha ka laabato oo xaqiiqada aad waajihi weydo oo xalka aad raadin weydo, weligaa sidaasaad ku noolaanaysaa. ha noqon markaa qof runtii mashaakilka ka baxsada isagoo mashaakilkii ku dhex jira oo bartanka u fadhiya ayuu muxuu iska dhagayaa mushkilad baynaana dhicin. mushkiladaasi way ku weynaanaysaa hadhow waxa imanaysa waqti aan waxba ka qaban karin. marka waxaa lagu leeyahay oo fikirkan uu ku oranayaa mashaakilka ku haysaha ka baxsana waajih oo si xoog badan ku waajih oo xalkooda raadi oo u dhabar adayg. fikirkaasina oo afkaartay tahay ina maskaxda aad ka saarto. fikirka runtii sideedaad waxa weeyaan ee loo baahay daawada inaad ka fogaato waa fikirka oranaya warniyo wax kastoo igu dhacaaya iyo fashal kastoo isoo gaadhaya waxa sabab igu ahaa waqti hore berigii hore ayaa dhibaato isoo gaadhay. paas wixii hore dhacay, dhibaatooyinkii hore igu dhacay ayaa sabab igu ah ilaa maanta dhibta aan ku jiro. haddaad fikirkaa aamintana meeluma socotid. haddaad tiraahdo warniyo maanta imtixaanaadkan aan ku dhacayo wax kale sabab iguma aha, sabab waxaa igu ah hooyaday iyo aabbahay oo dugsi fiican oo waxbarasho aanay geynin berigii hore. yaraanteedii markaan iskuulka dhiganayay dugsi fiican hooyaday aabbahay imay geynin, marka inaan jaamacadda ku dhaco oo maanta aanan baasin taasaa sabab igu ah. arrintaas sax maaha. haddaad wax kasta kugu dhaca aad u tiriso waqti hore baas wixii hore u dhacay ood kuwaasoo ku xidho, noloshaada way ximaanaysaa. haddaad tirahdo guurkan iga xumaaday sabab kale ma aha, waxa weeyaan waa runtii ninkaa xunee berigaa la ii guuriyey ayaa sabab igu ah. maya, adigu xaqiiqada waanaad waajahdaa. iska ilo wixii hore u dhacay, iminka ka sheekay, hadda ayaa taagan tahaye go-aanka adigaa iska leh, cid kale ma laha. go-aankaaga qaado. laakiinse inaad noloshaada oo dhan aad ka dhigto qof la dhibay oo dhibaatadii waqti hore soo gaadhay ilaa hadda ay socoto oo wax kastoo isla qababa dhibtii horun ay saameyn ku samaynayso, arrintaasi sax maaha. daawada waxaa la yidhahdaa wixii tegey waxaa laga helaa khibrad baa laga helaa, waa laga faa'iidaystaa, laakiinse waa laga saaraa taariikhda, waa laga saaraa maskaxda, waa laga saaraa wixii tegey. maskaxdaada ha ku soo celcelin wixii dhacay, dhibtii hore kuu soo gaadhay iska ilow. waxaad ka fikirtaa maanta joogtaaye maxaad qabsanaysaa. mustaqbalka laftigiisa lagama fikiree, waa la qorsheeyaa. mustaqbalka qorshee oo qaabkaad ugu talagalashay qorshee, laakiinse isaga laftiisa ha ku mashquulen maxaa kugu dhici doonaa, ma dhibaata kusoo gaadhaysa, ha ku mashquulen. qorsheyn iyo wanaag isagaa ka shaqee. maanta laakiinse isweydiin maxaad qabataa. mabda'aasina waa maadada aadka u muhiimka. fikirka sagaalada aadka u muhiimkiisna waxa weyn daawada waa fikirka oranaya ee ay tahay inaad ka fogaato. fikirka oranaya war haddii aanan sanad haysan, cid runtii gacanta ay qabato maadaama aanan haysan, noloshayda runtii guul ma gaadhayso. oo dadka qaar baa aaminsan dhibaatada haysata iyo inaanay waxba qabsan inay sabab tahay inaanay haysan qof caawiya, qof garab taagan oo markasta la garab taagan mucaawino inaanay haysan. taasi sax maaha. nolosha sideedaba adigaa ka mas-uula. cid kale inaad tiraa ciddaas waa inay caawisa maaha. bini aadamku waa iscaawiyana waa sax, laakiinse cidda la raba inay istaagto oo sideeda u istaagto oo ay wax qabsato waa adiga. marka ha ku marmarsiyoonin haddii sida hebel aan haysan lahaa qof sidaa ii garab taagan meel baan gaadhi lahaa, taa ha ku marmarsiyoonin. waa inaad naftaada tiraahdaa meesha aad rabto waad gaadhi kartaa, aday kugu xidhan tahay, cid kale kuma xidhna. hadduu ilaahay sanadku siiyo cid ku taageertana waa alxamdulilah, haddaanad haysanna waa inaad wadada adigu qaada oo aada socota. qodobka tobanaad ee ugu dambeeya waxa weeyaan ee daawada ay tahay markuu fikirkeena kusoo dhaco inaan iska ilaalino, waa fikirka oranaya perfection. wax kasta siday tahay waa inaynu qabtaa.
mar kasta waa inaan gaadhaa xagga waa in sida ugu dhammayskatina wax kasta uu qabtaa. arrintaas sax maaha. bani aadamku sidiisaba kaamil ma dhammaystirna. wax kastood qabanayso qof dhammaystiran ma noqonaysid. saa daraadeed adiguna dadka ha ka sugin wax dhammaystiran, adiguna marna ha isu qaadan qof dhammaystiran. shaqaalahagaad hawlu diratay, hawshii bay soo qabteen, waxbaa ka yara qaldambay oo dulqaado. ha odhan waa inaad 100% sida aan rabay medh u samaysaan oo waxaan kaamil noqda oo perfection la helaa. ha odhan sidaa, sababtoo perfect marna ma noqonayno. wax weyn wax kasta ma dhammaystirmi karaan, mar kasta waxbaa dhinaanaya. noloshuna waa sidaas ayay ku macaan tahayba, oo ay tahay u samaysatana waa qaabkaa. marka inaad dadka kale ka sugto wax dhammaystiran oo bilaa qalada, adiguna naftaada aad arrintaa ku xukunto, waxay kasta hore inaanad socon. sababtoo maalin alla maalinta sara wax qabo, waxaad arkaysaa inaanad sidii la rabay aanad u qaban, kadibna waqti bay ka qaadanaysaa. tusaalaan ku siinaya, research baa lagu yiri soo qor, paper ayaa lagu yiri diyaari, ama buug baad qoraysaa. markaasaa istiri waa inaad u qortaa sida ugu dhammayska tiro bilaqada qalada. weligaa buuggaa dhamaymaysid, sababtoo maalin kasta wuxuumaa kugu soo baxaya. bani aadamkaana noocaasa. markaa sidaa dar waxaa lagu leeyahay iska bilow. haddii 70% aad gaadho inaad wixii sax noqdaan, okay. 80% okay. layse 100% baan wax kasta sax ka dhigaya, suurtagal maaha. bani aadam baa mar kasta qalad baa soo baxaya. markaa daawada waxaa lagu leeyahay ha noqon noloshiisa qof mar kasta maskaxdiisa ay ku jirto uun wax kasta waa in saxa ay noqdaan, sidii la rabay ay noqdaan 100%. taa marna ha ku fakere. laakiinse noloshu waxaa iska leedahay daalac naazil bay leedahay, sidaa waa inaad ku qaadato. daawada intaasina kusoo koobaynaa casharkeena maanta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.